rumaynta Rabbi oogidda salaada xilliyeysan iyo badinta xuska Alle ma yihiin kuwa inaga kaabaya fayaqabka nafteena. waa isweydiin wax badan oo aqoonyahan ah ku xidhay wareeriso ay u waayeen wax jawaab ah. hase ahaatee tobannaankii sano ee u dambeeyey ayaa waxa la helay cilmi baarisyo fara badan oo arrintan kaga jawaabaya haa. sidee ayaa uu Rabbi u gediyi karaa garaadkaaga? waa ciwaanka dhigana cilmiyeed ay qoreen laba aqoonyahan oo u dhashay qaaradda Yurub, kuwaas oo ku nuuxnuuxsanaya raadka uu iimaanku ku leeyahay wadhaadhaha nafta iyo badqabka jidhkeennu uu ka fayow yahay cudurrada haleela maskaxda sida depressionka iyo stresska. muddo dheer oo ay culimmada ka faallooda arrimaha sayniska iyo dareen wadayaasha jidhku ku shababnaayeen diraasaynta raadreebka abuur ahaaneed ee ku yimaada maskaxda xilliyada cibaadada iyo waxa ka dhasha ee ah khushuuc iyo dareemo sareeda leh, waxaa diraasadahaas ka soo baxay cilmiga loo yaqaano Neurobiology of Religion and Spirituality. cilmigaasi waxa uu horseeday tallaabooyin togan oo loo qaaday dhinacaas kadib markii ay inoo sahashay aaladda loo yaqaano SPECT Single Photon Emission Computed Tomography. aaladani waxa ay inoo qabataa in aynu la soconno qulqulka dhiigga dhex mushaaxaya maskaxda kadib marka dhiigga lagu duro maadad ka dhigaysa mid wirwiraya. taasina waxa ay cilmi baadhayaasha u suuro gelinaysaa in ay diraaseeyaan falgalka dareen ee dhex socda maskaxda iyada oo qulqulka dhiiggu uu barbaro la ahaanayo falgalka dareenka. aqoonyahanku waxa ay arrintan uga dan lahaayeen in ay wax ka ogaadaan qaybaha maskaxda ee wirwidha howlgalka dareen bilaaba iyo qaybaha xasila hakiya dareenka shaqo joojina sameeya xilliyada uu qofku ku nool yahay rayrayn naf ahaaneed iyo hilowga haybadda jiritaanka abuurihiisa. cilmi baadhayaashu waxa ay heleen in qaybta hore ee maskaxda frontal lobe ay u iftiimayso sidii laga filayay maadaama oo ay tahay goobta u fiirsiga. waxaase lama filaan noqotay in qaybihii kalena ay galeen xasillooni iyo deganaansho dhammaystiran. iska dhaaf intaase waxaa jirta qayb ka mid ah maskaxda oo ah qaybteeda sare, waana midda loo yaqaano superior parental lobe. gebi ahaanba way hakisay dhammaan dareemada, waana qaybta maskaxda ee mas'uulka ka ah in ay ogaato dareemada dhex mushaaxaya cirifyada jidhka, barbilowgooda iyo bardhamaadkooda, iyo xidhiidhka jidhka iyo walxaha kala duwan ee ku xeeran. sidaas daraaddeedna qofku waxa uu dareemayaa marka uu gudanayo cibaado isaga oo goradda la laadinaya in ay teedadka ku xeeran iyo derbiyada tiiraayooyinku dumayaan, ruuxdiisuna ay noqonayso mid xadhigka sidays ah oo aanay waxba qabanaynin, taas oo heegga sare ku heehaabaysa himilooyin sarsare iyo hannaan qurux samays kii ugu heerka sarreeyey, iyada oo dareemaysa weynanka Rabbiga keliya ee uumay kownka. cilmi baadhayaashu waxa ay ogaadeen in qaybta maskaxda ee wirwidha ama iftiinta xilliyada gorodlaalaadinta iyo u hogashada eebbaha weyne ay tahay qaybta loo yaqaano temporal lobe, waana qaybta qaabilsan dareemada caadifadaha, soo gocashada macnayaashii hadalka iyo kaydinta xasuusaha cusub. tanina haddii aynu dib u milicsanno dhab ahaan waa midda dhacda xilliyada uu qofka muslimka ahi gudanayo lama dhaafaha salaada isaga oo u dheg raaricinaya hadalka Alle kuna raaxaysanaya macaansiga maqalka hadallo noocan oo kale ah. haddaba iimaanku waa shay aynu u baahannahay oo nolosheenna u samaynaya macne, kana dhigaya mid yool leh oo ku dhammaan doonta meel. waxa uu inagu kaabayaa u dhabar adayga kadeedka, waxa uu inagu beerayaa rajada nololeed iyo jiritaanka Alle naxariis badan oo jecel abuurkiisa. taasina waa midda ay dhacdooyinka halista ah ee nololeed si kasta oo ay u adkaadaan haddana u yihiin kuwo aynu awood u leenahay in aynu kaga gudubno sabir, duco, rajo iyo rumaynta jiritaanka eebba cadaali ah oo awood u leh aqbalitaanka ducada iyo fayditaanka balaayada. dhammaan arrimahaasi waxa ay keenayaan hoos u dhaca xaddiga xanuunnada loo yaqaano stresska iyo depressionka. dhammaan arrimahani waxa ay caddayn u yihiin hadalka Alle ee ah waannu ka tusi doonnaa aayadahayaga cirifyada iyo nafahooda intaba, jeer ay uga caddaanayso in uu Rabbi yahay midka xaqa ah.